Shiinaha ayaa ku dhawaaqay inuu si guul leh u tijaabiyey gantaal masaafada dheer ee qaaradaha isaga goosha oo loo yaqaano ICBM, kaas oo xambaarsan madax nukliyeer macmal ah oo ku dhacay badweynta Pacifica. Gantaalkan ayaa la soo riday saaka 2 saac sida ay sheegtay wasaaradda difaaca ee Beijing, isagoo ku dhacay meel badda ah oo loo sii saadaaliyey. Wasaaradda ayaa sheegtay in tijaabadaasi ay ahayd mid caadi ah oo qayb ka ah tababarka sanadlaha ah. inkasta oo nooca gantaalkan yahay iyo dariiqa duulimaadkiisu maray aysan weli caddayn, warbaahinta dowladda Shiinaha ayaa sheegtay in Beijing ay si horudhac ah u sii wargelisay waddamada ay khusayso, balse Japan ayaa sheegtay inaysan helin wax ogeysiis ah oo ku saabsan tijaabadaas. Shiinaha ayaa caadiyan wuxuu hubka nukliyeerka hore ugu tijaabsan jiray gudaha dalkiisa, gaar ahaan saxaraha Taklaman ee gobolka Xinjiang. Waxaa la rumaysan yahay in dhacdadan ay tahay markii ugu horreysay tan iyo 1980kii oo uu Shiinuhu ICBM u rido meel ka baxsan xuduudihiisa. Tijaabadii ugu dambeysay ee noocaan ah ayuu Shiinuhu sameeyey May 1980kii, isagoo riday gantaal qaaradaha isaga goosha oo jaray masaafo dhan 9,070 kiiloomitir ka hor intuusan ku dhicin badweynta Pacifica. Tijaabadaas ayaa weli ah mid ka mid ah howlgallada badda ee ugu waaweyn oo uu Shiinuhu fuliyey. John Ridge, oo ah falanqeeyo difaac fadhigiisu yahay Mareykanka, ayaa sheegay in Shiinuhu uu sameeyey tijaabadan sidii qaab tusmo ama fariin u dirid Mareykanka ah. Inkasta oo xiriirka u dhexeeya Beijing iyo Washington uu soo hagaagayay sanadkii la soo dhaafay, haddana garab daarashada sii kordhaysa ee Shiinuhu gobolka ku hayo ayaa ah arrin xiisad abuuraysa. Xiisadda u dhexeysa Shiinaha iyo Philippines ayaa kor u kacday kadib markii ay maraakiib ay leeyihiin iskugu dhaceen xadka biyo muran ka taagan yahay. Bishii la soo dhaafay, Japan ayaa diyaarado dagaal hawada u dirtay kadib markii ay ku eedeysay diyaarad basaas oo Shiinees ah inay ku xadgudubtay hawadeeda, ficilkaas oo ay ku tilmaameen mid aan la aqbali karin. Xiriirka Shiinaha ee ku aadan Taiwan oo ah ismaamul lagu muransan yahay ayaa sidoo kale noqday meel ay ka sii olosho xiisadda taagan. Maanta oo Arbaco ahayd, wasaaradda difaaca Taiwan ayaa sheegtay in Shiinuhu si joogto ah u fulinayay tijaabooyin gantaalo iyo tababaro kale oo ciidan oo xooggan. Wasaaradda ayaa sidoo kale sheegtay inay soo ogaatay 23 diyaaradood oo ka tirsan militariga Shiinaha, kuwaas oo howlgallo ka sameynaya agagaarka Taiwan. Falanqeeyaasha ayaa sheegaya in Shiinuhu uu si joogto ah ugu soo dirayo maraakiib iyo diyaarado gudaha biyaha iyo hawada Taiwan, iyagoo sheegay in tani ay qayb ka tahay dagaalka aageed ee lagu doonayo in lagu caadiyeeyo soo gelidda Taiwan. Bishii Julaay ee sanadkan, Shiinaha ayaa hakiyey wadahadalladii xakameynta hubka nukliyeerka ee Washington ka socday, iyagoo xujo uga dhigay in hubka uu Mareykanku ka iibinayo Taiwan uu marka hore joojiyo.